markuu ogaaday inuu ka mid yahay waardiyaasha wiilkan dhalinyarada ah ayaa kaashaday xayawaano leh awood sixir leh si uu uga hortago in jijimad muhiim ah gacanta u gasho sixiroole madow. Hong Kong sanadkii 2009 Islaanda weyn iyo wiilkeeda yar ayaa gaari ku socday markii daraagoon uu ka soo baxay uuna bilaabay inuu ku eriyo wadada. maadaama ay caado u ahayd inay ka cararto daraagoonka, Linga ayaa gaariga si degdeg ah u waday waxayna ku sii jeedisay xayawaanka, taas oo keentay inuu ku dhaco gaari xamuul ah. markii ay sidaas dhacday, jinniyo kale ayaa soo muuqday si ay u qabtaan, laakiin islaantu si fudud ayay uga takhalustay xitaa iyada oo aan gaariga ka degin. intii ay islaantu iyo Tom ka cararayeen, xayawaanada xidigaha Shiinaha ayaa soo muuqday si ay u ilaaliyaan oo ay uga saaraan ruuxa sharta leh. markaas gaariga ay wado Linga ayaa damay, daruuro cagaaran ayaana ku soo wareegay. markuu arkay islaanta iyo wiilka oo khatar ku jira, shabeelkii ayaa soo booday si uu u ilaaliyo, wuxuuna la midoobay Linga si ay ula dagaalamaan Lee. 5 sano kadib, magaalada San Francisco, Tom wuxuu noqday wiil dhalinyaro ah oo hadda galay dugsiga sare. inkasta oo uu dhibane u yahay ardayda xooga badan, had iyo jeer wuxuu ku celceliyaa ka xanaajintooda, taasna waxay mararka qaarkood keentaa in la garaaco. laakiin markii Liam uu ku dhaho ayeeyadaada waa saaxirad, Tom wuu xanaaqay, wuxuuna si kama ah awoodiisa ugu tuuray wiilka saqafka korkiisa. xilligaas Raf oo meel u dhow joogtay ayaa aragtay waxa dhacay. markii casharka dhamaaday, waxay go'aansatay inay la hadasho Tom, waxayna u soo bandhigtay inay guriga sii geyso. intii ay ku ciyaarayeen isteedka magaalada dhexdeeda, Raf waxay fursad ku heshay inay wax badan ka ogaato Tom iyo sida uu ku helay awoodiisa. galabtii, Tom wuxuu tusay dhismaha gurigooda oo ka midab badan kana qurux badan inta kale ee xaafadda. Tom wuxuu sheegay in mar uu noqday kaftanka macallimiinta dugsiga maadaama ay u maleeyeen inuu ku nool yahay guri Shiinees ah. ka hor inta aysan guriga gelin, Tom wuxuu macsalaameeyey Raf, ayeeyaduna aad ayay ugu faraxday inay aragto wiilkeeda oo la hadlaya gabar, laakiin Tom wuxuu sheegay inay saaxiibo kaliya yihiin. run ahaantii, Tom wuu ka xishooday gurigaas qaabka leh, wuxuuna ka murugooday mar kasta oo qof dugsiga ka mid ah ka hadlo meesha uu degan yahay. markaas Linga waxay u sheegtay in xitaa haddii ay kaftan u muuqdaan calaamadaha ku wareegsan guriga ay yihiin kuwa muhiim u ah difaaca qoyska. islaantu waxay arkaysaa wiilkeeda oo dhaawac kaga muuqdo isha, waxayna ka caawisay daaweyntiisa. muddo dheer ayay sugaysay wakhtiga ku habboon si ay ugu sheegto sirta qoyska, waxayna Tom ka codsatay inuu calaamadaha dib ugu soo celiyo si ay ugu wada hadlaan. markii Tom uu fulinayo codsigii ayeeyadiis, Master Hu ayaa soo muuqday, wuxuuna sheegay in ay jirto hab sax ah oo calaamadahaas loo suro. ninkaas ayaa weydiiyey inta uu xirnaa sixirka, wuxuuna guriga u galay si uu u hubiyo in Linga ay fiican tahay. markay ayeeyo iyo saaxiibkeed hore dib u kulmeen, aad ayay ugu faraxday, uuna wuxuu u sheegay inuu uriyey sixir ka dhacay dugsiga Tom subaxaas. isla markiiba Linga waxay garatay in wiilkeeda uu bartay sida loo isticmaalo sixirka, waxayna weydiisay waxa ka dhacay markii uu la dagaalamay Liam. markuu maqlo in Tom uu wiilka ku tuuray saqafka, wuxuu sheegay inay degdeg uga baxaan magaalada maadaama uu jiri karo qof sharta taageera oo arkay awooda Tom. Tom oo cabsanaya ayaa weydiiyey qofka uu ninkani yahay, uuna wuxuu u sheegay inuu ka mid yahay 12 geesi ee Zodiac lagu magacaabo, kuwaas oo dhaarta ku galay inay ilaaliyaan magaalada saaxiriinta. sheekadan oo dhan waxay Tom sii gelisay wareer, markaas wuxuu garwaaqsaday in Linga weli aysan u sheegin runta wiilkeeda. si lama filaan ah, ayeeyadu waxay dareentay in awooda xun ay soo dhawaanayso, muraayadii gurigana waxay bilaabtay inay dilaacdo. markaas Linga iyo Hu waxay isku diyaariyeen dagaal, ayeeyaduna waxay adeegsatay awoodeeda si ay u samayso gaashaan difaaca. markay garatay in sixiroole awood leh ay soo socoto, Linga waxay amartay Hu inuu Tom ka fogeeyo khatarta, iyaduna ay la dagaalamayso jinniyada Lu ee loo soo diray si ay u xadaan awooda. markuu arkay ayeeyadiis oo halis ku jirta, Tom wuu soo laabtay si uu u badbaadiyo, balse mid ka mid ah makhluuqaadka ayaa ku wareegay. xilligaas Hu wuxuu muujiyey qaabkiisa dhabta ah oo uu isu bedelay shabeel si uu u ilaaliyo Tom. si kastaba ha ahaatee, markii uu arkay jinniyo cusub oo u soo dhawaanaya, shabeelku wuxuu go'aansaday inuu cararo isagoo Tom ka fogeeyey cadowga. markuu isku dayay inuu ka boodo saqaf ilaa saqaf kale, waxaa dhaawacay jinni, Tomna wuxuu ku sigtay in la qabto. intii ay cararayeen, Tom wuusan bariiraxday, wuxuuna qabsaday tubo, balse tubadii way goday. markuu wiilku hoos u dhacayay, shabeelku wuxuu ku guulaystay inuu qabto, labadooduna waxay ku dhaceen weel qashin ah. maadaama aysan haysan xayawaanada Zodiac si ay uga caawiyaan, Linga waxay bilowday dagaal ka dhan ah Lu, waxaana inkastoo ay weyn tahay oo ay daciiftay, ay ku guulaysatay inay garaacdo saaxiriinta. Tom oo ka baqaya in ayeeyadiis wax ku dhacaan ayaa guriga ku soo noqday, wuxuuna ku farxay markuu arkay inay weli nooshahay. laakiin markii uu u malaynayay in dagaalku uu dhammaaday, Lu ayaa soo muuqatay. Lingana waxay garatay in aysan awoodin inay ka adkaato. si ay awooda u ilaaliso, waxay jijimadii siisay wiilkeeda, kadibna waxay qarxisay guriga iyada oo nafteeda u huraysa si ay saaxiriinta u baabiiso. daqiiqada kadib, gaarigii ruuxda ayaa yimid si uu nafta ilaaliyaha u qaado, uuna wuxuu Tom u qaaday dhinaca kale ee magaalada. shabeelku wuxuu garanayaa in hadda hawshiisu tahay inuu wiilka dhalinyarada ah ilaaliyo, sababtoo ah wuu hubaa intaasi ay ahayd wixii Linga ay rabtay. wuxuu go'aansaday inuu Tom geeyo meel sir ah oo uu ku dhuumanayo, wuxuuna u sheegay in wiilkani noqon doono ilaaliyaha cusub ee dunida awooda sixirka. tan iyo markii boqorad Noosi ay adeegsatay awooda si ay uga duwanaato dadka, awoodaha madow waxay isku dayayeen inay qabtaan qoyska Tomna waxaa loo ogolaaday inay ilaaliyaan jijimadaas. si kastaba ha ahaatee, Tom wuxuu sheegay inuusan diyaar u ahayn mas'uuliyaddan, wuxuuna ku eedeeyey Master Hu dhimashadii ayeeyadiisa, sababtoo ah isagoo ah geesi ka mid ah Zodiac, waxaa saarnaa waajib ah inuu ilaaliyo. Tom oo caro ka buuxdo ayaa isku dayay inuu baxo, balse sixir ayaa lagu xiray, albaabka ayaana laga hor istaagay. wuxuu u sheegay in laga bilaabo maanta uu isaga noqon doono macalinkiisa. habeenkaas markuu Tom seexday, naftiisa
dhankiisa waxaa loo qaaday dunida ruuxda halkaas oo uu kula kulmay Phoenix markaas shimbirta dabka ayaa isu bedeshay haweeney waxayna isu soo bandhigtay Nausea boqoradu waxay tiri Tom hadda wuxuu ka tirsan yahay labada aduun markay madaxiisa taabatayna wiilku si degdeg ah ayuu u soo toosay markuu hoos ugu soo degay jaranjarada gurigiisa cusub wuxuu arkay shabeelka oo u sameynaya xushmad saaxiibtiis geeriyootay wuxuuna go'aansaday inuu la socdo sidaas ayay labadooduba si wanaagsan ugu macsalaameeyeen Linga waxayna u murugootay geerideeda subaxdii wuxuu isku dayay inuu Tom soo toosiyo balse wiilku uu diiday markaas shabeelku wuxuu ku toosiyay dhawaaqiisa xoog leh wuxuuna geeyay qolkii tababarka si uu u tijaabiyo awoodda ardaygiisa wuxuu ku casuumay dagaal balse Tom xitaa ma taaban karin waxa intaas dheer wuxuu lumiyay jijimadiisii mana oga ilaa uu macalinkiisu uga digay markuu isku dayay inuu dib u helo silsilada Tom wuxuu arkay Dolly wuxuu si degdeg ah isu bedelay shabeel si uu qabto intii ay cararayeen Dolligii ayaa ku dhacay garabka Tom wiilkuna wuxuu ku tuuray derbiga isagoo adeegsanaya kubad tamar ah isla markiiba Dolligii ayaa isu bedelay qof bini'aadam ah oo isbaray magaciisa oo ah Sydney sida uu sheegay ninkani waa tuug noloshiisa ku maareeya iibinta alaab la xaday wuxuuna uga digay Tom inuusan ku kalsoonaan markii uu muujiyay qaabkiisa dhabta ah Sydney wuxuu u sheegay in uu arkay Lou habeenkii hore wuxuu ogaaday in cadowgii aan lagu dilin qaraxii guriga Dolligu wuxuu sheegay in uu ku socday tuubada biyaha hoose markii uu arkay Lou oo soo galaysa guri qadiimi ah oona cidlo ah saaxiradii waxay u muuqatay mid si xun u dhaawacantay waxayna ku gurguuratay ceelka biyaha markay biyaha ka soo baxdayna Lou way bogsatay isla markiiba Tom wuxuu yiri uu u dhaqaaqi doonaa si uu ula dagaalamo laakiin ayaa ka mamnuucay maadaama uu garanayo in Lou ay awoodada la egtahay ilaaliyaha isla markaana ay weli isticmaali karto sixirka madow sidaas darteed wuxuu go'aansaday inuu u safro guriga si uu caawimaad uga dalbado geesiyaasha kale ee Zodiac ka hor inta uusan bixin Sydney wuxuu Tom siiyay seef hadiyad ah isla maalintaas saddexdoodii waxay u safreen aaga Jinaton markay gaareen marinka dhexdiisa waxay ku soo arkeen qaar ka mid ah jinniyada Lou intii isu diyaarinayay dagaalka abeeso weyn ayaa soo muuqatay waxayna keligeed si fudud uga takhalustay makhluuqaadkii markaas ayay abeesadu isu bedeshay haweeney bini'aadam ah Tomna aad ayuu ula dhacay markuu la kulmay Mr. haweeneydu waxay tiri sharaf ayay u tahay in loo noqdo ilaaliye balse markuu maqlay taas wuu ka masayray maadaama Linga ay daryeelka wiilkeeda u dhiibatay isaga wax yar kadib kooxda waxay gaareen maqaayada waxayna aadeen jikada halkaas oo ay haweeneydu adeegsatay sixirkeeda si ay u furto albaab qarsoon oo si toos ah u geynaya guriga awooda 12 markii ay yimaadeen hoyga sixirka Sydney wuxuu Tom u soo bandhigay makhluuqaadkii kale ee xidigaha shiinaha wiilkuna wuxuu ka codsaday inay ka caawiyaan inuu ka aarguto Lou laakiin wuxuu sheegay in Tom aan meesha loo keenin aargudasho balse loo keenay inuu barto sida loo noqdo ilaaliye markuu Rooster ogaaday in Linga la dilay aad ayuu u carooday wuxuuna muran xoog leh la galay shabeelka si dagaalku uusan u sii kicin Naomi oo ah daanyeer ayaa labadoodaba ku yaraysay cabir yar waxayna ku qasabtay inay isku cafiyaan markii ay dib ugu soo laabteen cabirkii caadiga ahaa kooxda waxay ogaadeen in Tom uu maqan yahay waxayna go'aansadeen inay raadiyaan Tom oo rabitaanka aargudasho uu wado wuxuu aaday gurigii cidlada ahaa ee Sydney uu ku arkay Lou wuxuuna qaatay seeftiisii si uu ula dagaalamo sixirada markuu ku socday barxadda wuxuu maqlay dhawaq wuxuuna si xoog leh ugu weeraray qoryo qaloocan oo agtiisa yaalay ilaa uu ogaaday in dhawaqa ka yimid ay ahayd tixsi yar oo markiiba carartay cabsida darteed markii uu ka soo kabtay naxdintaas Tom wuxuu u soo dhawaaday albaabka jirkiisuna si toos ah ayuu uga gudbay markaas ayuu ogaaday in gurigu si qurux badan uga ifayo gudaha taasoo muujinaysa in qof uu ku nool yahay daqiiqada kadib geesiyaashii Zodiac ayaa yimid waxayna ogaadeen in gurigan uu yahay khiyaano uu sameeyay sixiroole madow si ay Tom waqti ugu helaan xayawaanadu waxay isku qaybiyeen laba kooxood mid walbana waxay u baxday dhankeeda dhanka kale Tom wuxuu dhex socday qolalka guriga isagoo raadinaya Lou xitaa isagoo aan ogeyn in saaxiibadiis ay iyaguna halkaas ku jiraan oo raadinayaan markay dib u fiirisay Naomi waxay aragtay in dallad ay daba socoto waxayna ogaatay in sixiradu ay dallada u adeegsatay inay ku xirto qaar ka mid ah asxaabteeda isla markiiba bakaylaha ayaa dhigihiisa ugu dhuftay dallada balse intii lagu jiray dagaalka waxaa la qabtay isaga iyo Rooster intii uu guriga baarayay Tom wuxuu la kulmay Raaf gabadhuna aad bay ula yaabtay markay aragtay wuxuu weydiiyey waxa ay arday isku fasal ah ugu jirto gurigaas Raafna waxay u sheegtay in ay halkaas ku nooshahay markaas ayay soo muuqatay hooyada korsatay Tomna markuu gartay in haweeneydani tahay saaxiradii ayuu seef ku weeraray balse Lou waxay ku bedeshay dhagax iyadoo adeegsanaysa sixirkeeda xilligaas ayay saaxiradu muujisay wejigeeda dhabta ah waxayna meesha ka qaaday fiyaano muuqaalka guriga ka dhex jirtay Raaf oo cabsatay waxay isku dayday inay fahanto waxa meesha socda waxayna ogaatay in hooyadeed aysan ahayn qofkii ay u malinaysay Lou waxay ku qasabtay gabadha inay ka qaado Tom silsilada jijimada ah balse waxay ku xanaaqday markay ogaatay inuusan awooda wadanin Lou muddo 1000 sano ah ayay isku dayaysay inay hesho jijimada shimbirta dabka waxayna amartay Tom inuu sheego meesha uu ku kariyay isla markiiba geesiyaashii Zodiac ee aan la qaban ayaa yimid waxayna iska kaashadeen inay weeraraan balse saaxiradu waxay daladeeda u isticmaashay gaashaan waxayna qorshaysay inay hal marba dhammaantood ay laayso saaxiradu waxay guriga ka rogtay sidii uu madax u noqon lahaa waxayna ku daadisay biyaha badda intii uu biyaha ku jiray Dolligu wuxuu ku sigtay in mindi jirkiisa ay dalooliso balse wuu ka leexday mindiduna waxay dilaac yar ka samaysay derbiga markii kooxdii oo dhan ay dib isu heleen Sydney wuxuu sheegay inuu haysto qorshe baxsasho Naomina waxay asxaabteeda ku yaraysay cabir yar si ay daloolka u dhex maraan sidaas ayay ugu suurta gashay inay tuubada ka baxsadaan biyuhuna waxay u qaadayeen ilaa banaanka guriga Raaf oo ka argagaxday wixii dhacay waxay u mahad celisay Tom iyo asxaabtiisa kadibna way tagtay isla
isla markiiba Hu wuxuu arkay koox jinniyo ah oo ku socda magaalada wuxuuna Tom ka weydiiyey meesha uu jijimada ku kariyey. Tom wuxuu sheegay inuu awooda uu ku reebay weel buskudka ah oo uu ka helay maqaayada. Intii ay cashada wada cunayeen kooxda waxay qorsheeyeen xeelad lagu badbaadinayo saaxiibadooda ku jira dalada Lu waxayna go'aansadeen inay Tom tababaraan si uu awood ugu yeesho inuu ka adkaado saaxirada. Caqabadii ugu horeysay ee wiilku wajahayo waa inuu barto sida uu ula xiriiro awoodda kaas oo haysta awoodda ugu weyn ee jirta. Haddii gacmo khaldan ay gasho tamartan waxay noqonaysaa mid burburinaysa. Haddii gacmo sax ah gasho waxay leedahay awood ay wax walba ku abuuri karto. Lu waxay rabtaa inay ka xado awoodiisa si ay u burburiso baniaadamka oo dhan una geliso adduunka mugdi si ay weligeed ay u xukunto. Maalmaha ugu horeeya ee tababarka Tom wuxuu bartay sida loo xakameeyo tamarta jirkiisa iyo sida loo sameeyo sixir difaac ah. Markuu ugu dambeyn bartay sida loo tuuro kubadaha tamarta Tom wuxuu ku sigtay inuu sababo shilal dhowr ah. Uuna wuxuu weydiiyey inuu weli xiriir la sameeyey awoodiisa. Maalmo ayaa dhaaftay Tomna weli kuma guuleysan inuu la xiriiro shimbirta dabka taasoo ka careysiisay macalinkiisa. Markuu Hu ka tagay Mr. waxay u sheegtay Tom in ay nafteeda u huray si ay u badbaadiso isagoo weli ilmo ah. Intii lagu jiray dagaalkii ka dhanka ahaa Lu shabeelkii waa la dilay. Gaadhigii ruuxda soo qaadi lahaa ayaa soo socda markuu Linga ay siisay qayb nafteeda ka mid ah taasoo ku guuleysatay inay saaxiibkeed badbaadiso. Galabtii markii la gaaray Tom wuxuu go'aansaday inuu booqdo gurigii uu ku noolaa. Markuu gaarayna wuxuu arkay ayeeyadiis. Isla markiiba Linga waxay ku soo dhaweysay dhunkasho. Wiilkuna aad ayuu ula yaabay markuu ogaaday inay weli nooshahay. Wiilku wuxuu ku dhawaaday inuu siiyo silsiladii jijimada balse markaas Raaf ayaa soo muuqatay waxayna sheegtay in tani aysan ahayn ayeeyadiisa dhabta ah. Isla markiiba Lu ayaa weerartay gabadha waxayna isku dayday inay u isticmaasho gaashaan ahaan balse Raaf ayaa ku dhuftay. Tomna wuxuu ku tuuray kubad tamar ah. Labadooduba way ka carareen balse saaxiradu waxay ka gudubtay derbiga waxayna ku guuleysatay inay ka xado Tom jijimadii awoodiisa ahaa. Markay gaartay yoolkeedii Lu way baxday. Tomna wuxuu ku noqday maqaayadii si uu uga codsado saaxiibadiis inay ka caawiyaan soo celinta awoodda sixirka. Wiilku isagoo niyad jabsan oo aan gudan karin waajibaadkiisa wuxuu kaligiis fadhiistay saqafka. Shabeelkiina wuxuu u yimid inuu la hadlo. Markaas Hu wuxuu u sheegay inuu Tom ilaalinayay tan iyo markuu dhalaanka ah inkastoo uu meel fog ka ilaalin jiray. Kadib wada hadal kooban labada nin way heshiiyeen. Tomna wuxuu sheegay inuu diyaar u yahay inuu ka caawiyo soo celinta jijimada. Habka ugu macquulsan ee tan lagu sameeyo waa in Tom laftiisa oo awoodiisa uu kula xiriiro. Laakiin isla markiiba joogitaanka Tom waxaa dareentay Lu waxayna sii daysay jinniyo badan oo ku socda. Si ay waqti ugu iibsadaan ilaaliyaha cusub inuu soo celiyo jijimada, makhluuqaadka Zodiac waxay bilaabeen dagaal waxayna adeegsanayaan awoodahooda si ay uga hortagaan makhluuqaadka mugdiga ee isku dayaya inay Tom soo qabtaan. Markuu arkay wiilka oo la eryanayo, uu wuxuu go'aansaday inuu kor u qaado isagoo u kaxaystay dhismo dheer isagoo dhabarka ku sida. Markuu gaaray dusha sare, shabeelku wuxuu weeraray Lu oo wuxuu ku dhuftay farahiisa, laakiin saaxiradu waxay adeegsatay daladeeda si ay isaga difaacdo. Tomna wuxuu ku sigtay inuu gacanta u galo jinniyada markuu isku dayay inuu ka boodo weerarka. Nasiib wanaag, uu wuxuu ku guuleystay inuu Tom ka qabto hoos u dhicista. Luna waxay ku weerartay si xoog leh oo madow, laakiin Tom wuxuu sameeyay gaashaan difaac ah oo ku wareegsan isaga iyo shabeelka, taasoo badbaadisay labadoodaba. Si kastaba ha ahaatee, markii saaxiradu daladeeda u adeegsatay inay samayso dalool madow, Tom ayaa la nuugay, shabeelkiina si uu wiilka u badbaadiyo isagu halkiisii ayaa la qaaday oo la xiray. Markuu arkay saaxiibkiis oo la qabsaday, Tom aad ayuu u xanaaqay wuxuuna weeraray Lu. Kubad tamar ah ayuu ku dhuftay saaxirada wuxuuna laad kaga dhuftay wejiga, balse Lu waxay ku joojisay awoodeeda taasoo ka dhigtay mid aan dhaqaaqi karin. Intii ilaaladu isku dayaysay inay hesho hab lagu jabiyo, Sini wuxuu arkay daladii sixirka ahayd oo hawada magaalada dhex duulaysa. Rana waxay ku guuleysatay inay qabato iyadoo kaashanaysa Nomi. Jinniyo badan ayaa magaalada ku faafay, sidaas darteed waxay ku dhuunteen qashin qub. Nomina waxay adeegsatay sixirkeeda si ay u sii dayso dagaalyahanadii Zodiac, kuwaas oo isu keenay si ay u difaacaan ilaalinta awoodda. Markii qoraxdu dhacaysay, Lu waxay awood u yeelatay inay gasho tamarta awoodda, waxayna samaysay sixir ay ku xirto nafta dadka gudaha jijmada. Dagaalyahanadu waxay kor uga soo dhaceen dhismaha ugu sarreeya iyagoo dagaalamaya si ay uga saaraan makhluuqaadka mugdiga ah oo ay wadda ugu furaan Tom. Markay isku duubeen weerarka, waxay ku dhufteen Lu iyadoo aan awoodin inay ka leexato weerarkooda. Inkasta oo si adag loo garaacay, haddana way qososhay iyadoo og inay daahdeen. Qoraxdu markay dhacday, waxay nuugtay tamarta dhammaan nafta ay xaday, waxayna awooday inay dhagax ka dhigto dhammaan dagaalyahanada mar keliya. Markuu arkay asxaabtiisa oo gebi ahaanba aan isdifaaci karin, Tom ugu dambeyn wuxuu arkay awoodda sixirka, wuxuuna halkii dagaal ka doortay inuu la midoobo shimbirta dabka, taasoo ka caawisay inay ka baxdo awoodda mugdiga. Markii Lu isku dayday inay taabato jijmada, jirkeedii wuu burburay gebi ahaanba. Tomna wuxuu helay fursad uu dib ugu soo celiyo nafta ay lumisay. Kadib markuu badbaadiyey aadanaha, Tom wuu suuxay wuxuuna ka dhacay dhismaha. Uu isla markiiba wuu ka daba booday isagoo adeegsaday farahiisa si uu u jilciyo dhicistiisa. Markay dhulka yimaadeen, shabeelku wuxuu ogaaday inuusan Tom neefsanayn, wuuna argagaxay markuu arkay gaadhigii ruuxda oo soo socota si ay u qaado. Si uu wiilka u badbaadiyo, wuxuu ka codsaday asxaabtiisa inay ka caawiyaan inuu la xiriiro boqorada Noosiya, isagoo baryay inay nafteeda ku xirto tan wiilka sida ay Linga isaga ugu samaysay, inkastoo ay tani khatar ku tahay noloshiisa. Ugu dambeyn, wax walba sidii la rabay ayay u dhaceen, labaduba way ka badbaadeen. Kooxdu waxay ku noqotay gurigoodii.